golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa yeeshay kalfadhigoodii koowaad ee sanadkan 2015 kaas oo ahaa mid albaabadu u xidhnaayeen isla markaana dibajoog ka ahayd saxaafadu. kalfadhigan kadib ayaa gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Gabiley Shucayb Maxamed Muuse warbaahinta uga warbixiyay ujeedada uu daarnaa kalfadhigani. aad iyo aad baad mahadsantihiin shirbaan kulli ka soo baxnay wuxuu ahaa shirkii caadiga ahaa ee golaha deegaanka sidii golahu wada shaqayn lahaa sidii sanadka 2015 qabad cusub iyo dadaal cusub dheeraada ummadda wax lagu qaban lahaa bay ahayd iyo waliba dardargelinta hawlaha shaqo ee u yaala baaxadda leh ee u yaala golaha deegaanka Gabiley intaas ay ahayd wax kale oo maaragtay aan ka wada hadlay kala ma jirin laakiin dardargelinta hawlaha shaqo ee u yaala golaha deegaanka inta mashaariicda iyo hawlahaas ayay ahaayeen warad maadsantii muddadii aad meesha joogteen kullay marka ay soo gabagaboto shirka horumarinta iyo miisaaniyadda iyo hawluhu socdaan gabagabada shirarka insha Allah ma doontaan laakiin dardargelinta hawlaha shaqo ee hor yaala laxaad kale maadaama uu yahay golihii la soo doortay qabadii horumarin badan laga suugayo sidoo kale maayarka warbaahintu su'aalo ka weydiisay dad barakacayaalo oo maalmahan dambe laga soo daabulayay gobolka Awdal isla markaana la soo dejinayay deegaano ka tirsan gobolka Gabiley ayaa waxa uu ku jawaabay gudoomiye waxa jira dad sida la sheegay maalmihii ugu dambeysay lagu soo daldalayay magaalada Gabiley isla markaas sida hore loo sheegay inay ka barakaceen Gabiley iyadoo dadkii ka soo barakacay deegaanada Soomaal ay ku sugan yihiin daafaha magaalada arrintaasi oo ay hay'ad gacanta ku hayso ma ka wada hadasheen ka gol ahaan idin maxaad se koogtay shirkayga horaan sheego wax ku koobnaa sidii dardargelinta hawsha golaha loo hirgelin lahaa loo dhaqaajin lahaa muxuu ahaa shaqadii golaha muxuu ahaa sidii u socon lahayd wixii horumarnay lagu dari lahaa ayuu shirkaygu maanta koobnaa intii horaan idin sheegay way amaasantii dadka maanta soo qaxay halkan naga jooga golaha deegaanka maadaama uu yahay gobolka dhan oo khusay laga soo doortay miyaydaan inaad xaal ogaataan ahaynado xataa xukuumadda kula xisaabtantaan kullay wixii aan ka wada hadalay ee aanu maanta dhan ka shirinay horumarinta iyo wada shaqaynta golaha ayaa ahayd horta wada shaqaynta iyo midnimada iyo dhinac wada jeedka ka horeeya marka waad mahadsantihiin kamaamul hal laakiin waxba kama ogeydin miya waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilka Case.